waxyaabaha shareecada islaamka khilaafsan ee shareecadu munkarka ay u taqaano in meesha laga saaro oo la suuliyo ama se la yareeyo waa mid diintii kamid ah oo nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wadhālika ad'afu al-iiman laakiin markaynu shareecada dib ugu noqono kitaabka quraanka aynu eegno ama xadiiska nabigeena kaleey salaatu wasalaam laga heli maayo wadooyinka loo maro wixii munkar ee shareecada khilaafsan suulintiisa iyo baabiintiisa inay kamid tahay mudaharaadku iyo waxa dadku ay u yaqaanaan ictisaamaadka in meel la fadhiisto tusaalahaan wadooyinka kale inta la fadhiisto in la xidho iyo waxaan maanta loo yaqaan thawraadka ama kacdoonada dawladii oo dawlad muslima lagala hor imanayo kamid maaha wasaa'il tagyiir al-munkar wadooyinka sharciga ah wixii shareecada khilaafsan lagu bedelayo hadaan waxa lagaga hortagaya marka horeba aanu munkar baahayn ama wax shareecada khilaafsan aanu ahayna kaba sii daran xagee ka yimaadeen mudaharaadku iyo arintan sameeyay oo ka dhigtay wada loo maro ka hortaga waxa la diidan yahay arintaas waxay naga timi xagga gaalada iyo reer galbeedka ay naga timi inagoo muslimiina oo haysana wadooyin saxa oo loo maro wixii shareecada khilaafsan ama wixii la saluugsan yahay ama dulmi la tirsanayo bedelistiisa wax ka qabashadiisa inaynu iskaga tagno iyaga aynu ku dayano oo iyaga wadooyinkooda aynu maraa mid sax maaha taa marka laga yimaado qof kasto aqli limaanta uu qiimeyn karaa gaar ahaan wadankeena mudaharaadada ka dhaca waxaana culimadu yiraahdaan shayga hadii xukunkiisu uu ku cadaan waayo oo salaam shayga xukunkiisi shaki weyn baa ka galay dhinac walba wad ka eegtay uu ku cadaan waayo undur ila aqibatihi waxaad eegtaa shayga ciribtiisa dambe waa maxay midhihiisu fal ashiya tu'rafu bi thimariha ashiyadu iyo arrimo inay wax wanaagsan inay wax xun waxa lagu gartaa waxa kamid ah midhaha ka dhashay waa maxay midhaha ka dhashay mudaharaadada ka dhaca wadankeena midhaha ka dhashay waxa weeye dadka tuugta ah iyo dadka dabaajiirta ah in wadada loo furo dabeetana ay dadka xoolahooda boobaan dadka ay baadhaan dumarka ay faraxumeeyaan inay ka gaadhaanba waxa ka dhashay waa maxay iyo midhaha laga faa'iida waa in dad ku dhintaan nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu la zawaalu dunya ahwanu inda allah min qatl imri'in muslim adduunyada dhab inay baabaado marka muslimiinta laga reebo ayaa ilaahay agtiisa ka fudud qof muslima in la dilo wallahi wax allaala iyo waxa adduunyada dusheeda yaala madaxtinimo ah maala maamuus iyo ixtiraam qofku uu ku haysta ah masaalix iyo manaafic kala ah inaanay u dhigmin hadii miisaanka la saaro qof muslima inan yar oo muslimada wallahi inaanay u dhigmin arintaana waxa garanaya qofka si dhaba u garanaya qadarka uu leeyahay qofka muslimka dhiigiisu waa midhaha ka dhasha mudaharaadadu waa in dad ay ku dhaawacmaan midhaha mudaharaadada ka dhasha waa in nabadgelyada khalkhal ay gasho oo dad nabadgelyada cul u ahi ay ka faa'iideystaan oo ay u dhex raacaan waa in wadooyinku xidhmaan waa in masaalixdii dadka iyo danahoodii inay cadilmaan oo meheradihii ay xidhmaan oo dadkii shaqooyin ku socday ay gaari kari waayaan oo waxbarashadii waxa weeyaan ay istaagto marka dambena waxay isu rogi karaanba dagaal kooxa dhex mara oo dhiig fara badan waxa weeyaan ku daato marka waxa mudaharaad wadankeena ka dhaca ama dawladaha soo abaabusho ama ururo ama ahzaab ama ashkhaas soo abaabulaan cid soo abaabusho cid doonaysa baa noqoto wax sax maaha wax shariicadana ay fasaxayso oo gashayna maaha qofka muslimka ayna waa fitanka waa inuu dhaxararin nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu inna sa'ida laman junniba alfitan qofka guuleystay adduunyo aakhiro waa qofka fitanka laga fogeeyo fitanka aan dhaxgelin waxaanu nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam markay muslimiintu iskhilaafaan marka dadka muslimiinta ay isdilayaan dhiig u daadanayo marka dadku ay bilaa madaxba noqdaan xaaladda lagu jiro horta waa xaalad fitno fitnada dadku waa ku kala daran yihiin waxaana fitnada dadku ay ugu kala daran yihiin siday ugu kala socod badan yihiin dhexdeeda
وإنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من استشرفها تستشرفه بقول النبي فمن وجد ملجأ أو ملاذا فليعذ به فتن بعد عدوانا فتن كوا محي اسخلاف كوا فتنه اسلامت مسلمين توا فتنه فوضدي كلا دنبين لان توا فتنه فتن كان النبي عليه الصلاة والسلام وحيري qofka fadhiya wuxuu dhaamaa ka dhex taagan waynu ogsoonahay qofka fadhiya iyo ka taagan isku si wax uma qaban karaan isku sina inta badan wuxuu ma gaaraan ka taagan wuxuu dhaamaa ka dhex lugeynaya dhex socda wadee mawjadaheedii buu sii galaya ka dhex socdaana wuxuu dhaamaa ka dhex ordaaya way uu degdegaya isagu wuxuu dhibaato geysanayna oo dhibaato si degdega meel badan u gaadhay noqonaysa isagana dhibaatadii ayaa gaadhaysa nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri fitnada qofka u soo banbaxa tastashrifuhu ay tuhlikuhu way halaagaysa fitnadu qofkuna hadii fitna uu ku dhex dhinto hatta aakhiradiisu halis ay ku jirta fitna isagu u badheero naftiisa waxa weeyaan u dhex geeyay halis ba aakhiradiisu ay ku jirtaa nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu sheegay fitnada in laga cararo waynaga aragnayo hadii waxa weeyaan uu roob da'ayo ama dabaylo adag ay soo dhacaan dadku meelaha gabaadka bay ka galaan waxa ka dhibaato badan fitanka marka nabigu kaleey salaatu wasalaam isagoo nala talnay wuxuu qofka hela meelu ka galo iyo meelu kaga gabado iyo meelu waxa weeyaan kaga badbaado ha gala buu nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ilaahay fitanka ka magan galeynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda midnimadeeda ha u ilaaliyo qulubtoodana ha iswaafajiyo xumaanta ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhex saaro ilaahay baynu ka magan galeynaa dhiig islaam oo daata dhammaanteena taas ayna la gudbo nabigeena wuxuu taawudu billahi min alfitan ilaahay fitanka ka magan gala qofka fitnada ilaahay ka magan galeeyna qof dhibaateeda garanaya qofkaasina uu ka fogaanaya asbaabteedana uu ka durkaya